وعنا wanaagsan idin lahaantii badawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena wax ka baro barnaamijka maanta waxaan ku soo bandhigi doonaa taariikhda tirshada caanka ee Priyanka Chopra Jonas waxaan rajaynaynaa inay wax badan ka faa'iidi doontaan taariikhda tirshada Priyanka Chopra Jonas waxay dhalatay 18 July sanadkii 1982 waa tirashadii diya oo matasha aflaamta sidoo kale waa fanaanad iyo film soo saare waxa ay ku guuleysatay gabadha ugu quruxda badan adduunka sanadkii 2000 And Miss World 2000 is Miss India. So this is remarkable. This is the 5th time India has won Miss World. Of course, we met Richard before, who's the current world champion. She'll hand over the crown to the gorgeous, beautiful Priyanka Chopra, 18 years old. She's our student. She loves singing gospel. She'll be praising the Lord tonight as she receives the crown for the world's most beautiful woman. Priyanka Chopra is Miss World 2000 live around the world from the Dome. Priyanka waa mid ka mid ah tirashadaha ugu lacagta badan marka la eegayo dhinaca tiliinkana ugu caansan. Priyanka Chopra waxay ku guuleysatay abaalmarin kala duwan sida National Award-ka oo abaalmarin ay bixiso dawladda Hindiya dhanka aflaamta. 5 abaalmarinood ayay ku guuleysatay award-a. sidoo kale 2016 waxa loo magacaabay 100 qof ee dunida ugu saameynta badan sidoo kale 17 ilaa 18 shabakada caanka ee Forbes ayaa waxa uu aqoonsatay 100 dumara ee ugu awoodda badan adduunka haddaba Priyanka waa tirshad model oo dharka xayeysiisa waa fanaanad ku heesta afafka Hindiga iyo Mareykanka haddaba dharka Priyanka Chopra Jonas ayaa dhan 1.69 mitir halka uu miisaankeedu yahay 55 kiilo waxay leedahay indho buniya iyo sidoo kale timo madow waxay ku dhalatay magaalada Shamshipur ee dalka Hindiya halka ay ka degantahay magaalada Bareilly Priyanka waxbarashadeedii iskuulka waxay ku soo qaadatay dugsiyadii kala ahaa oo ku yaalay magaalada Mumbai gabi ahaanba waxbarashadeedii waxay ku soo gabagabaysay galaaskii 12aad Priyanka Chopra markeedii ugu horeysay ee ka soo dhex muuqato aflaamta waxay ahayd sanadkii 2002 waxaana ay soo saartay filimkii Tamishan oo Tamil ah dhanka qoyskeeda waxay leedahay Priyanka Chopra aabe lagu magacaabo Late Chopra oo ahaa physician ama dhakhtar ciidanka qaranka Hindiya sidoo kale hooyadeedna waa isla physician oo ciidanka qaranka dalka Hindiya sidoo kale waxay la walaaltahay wiil lagu magacaabo Siddhartha Chopra Priyanka Chopra waxay haysataa diinta Hinduuska sidoo kale waxa hobby u ah heesaha qoraalka gabayada akhriska iyo sawir qaadista haddaba Priyanka Chopra waa nooc cuntada ay ugu jeceshay cuntooyinka inay cunto aktarada ay taageerto waxa kamid ah Priyanka Maktio Mignofi Tom Hardy Mel Gibson Akshay Kumar Shah Rukh Khan Dara Madar oo ay Soomaalidu u taqaano Dara Madar dhinaca tirashadahana waxay taageertaa Sareekha Khan Shoshmita Sin dhanka aflaanta ay jeceshahay Priyanka Chopra ama ay daawato waxa kamid ah Hollywoodka iyo Bollywoodka favorite book ama buugta ay akhriskooda jeceshahay waxa kamid ah Romeo and Juliet oo uu qoray William Shakespeare sidoo kale buugtii Tell Me Your Dreams oo uu qoray isna Shelton
haddaba daawade waa su'aashaadii maxay kula tahay kalarka ama midabka ay jeceshahay atarashada Priyanka Chopra Jonas waa hubaal inay midabo badan niyadaada ka dhex ku hayaan waad ku saxsan tahay haddii ay niyadaada ku soo dhacday midabka casaanka ama guduudka ugu dambeyn daawada waxaanu ku haynaa arin la yaab kugu noqon doonto markaad aragto ama aad daawato imise xiriir ah ayay soo sameysay atarashada Priyanka Chopra Jonas sicid ma ka garanaysaa aktarada ay la soo sameysay xiriirka arinta la yaab kale ayaa in Priyanka Chopra xiriir la soo sameysay jilayaasha ugu waaweyn dhinaca Bollywoodka sida Akshay Kumar, Shah Rukh Khan, Shahid Kapoor iyo Harman Bawija biyo meel godan ayay iskugu yimaadaane Priyanka ayaa nolosheeda u dooratay Nick Jonas oo ah fanaan Mareykan iyagoo is horeysay sanadkii 2018 waxa ay leedahay uur dhawaan waxa la filayaa inay Priyanka noqoto hooyo waa hubaalintii aad daawanaysa inaad wax badan ka faa'iiday atarashada Priyanka Chopra Jonas taariikhdeeda oo kooban